السلام عليكم ورحمة الله صاحبي على سؤال وهذا كنا سؤال وهذا مقال كله عصب وصاحبك عن ترصاص سلمان مقال كان شرع سمانتنا هذا اللو ذا وحكي ساب سيهاي قاب كله استعمال ابلكيشن كله يقانا زوم ميتين ابلكيشن كانوا ابلكيشن رنتي هذا قارية كان ساعدة يينا كوغشين ميتينس كلا دودوان اما ان جلاسيس وحبرشو ما دام هذا الحري جلاسيدي وحبرشو اما ماليه كوبي وحبرشو دن الحري ان قف سو غوريغيسا جوغا oo xiisadiisi toos u qaadanayo waliba qaab online ahaan application ayaa ka saacidaya inaad qaab online ahaan aad u baratid way jiraan applicationo kale oo loo isticmaalo online classes marka application ka qaabka loo isticmaalo ayaan baranayna maanta ee ku soo dhawaada muuqaalka faahfaahsan اوكي صاحبي الان هرو قلو ابلكيشن waxaad ka helaysaa Google Play Store qaybta search ta waxaad ku qoraysaa zoom markaad ku qortid search aad leedahay marka ka ugu sareeya ee automatic ku soo baxay ay la soo degaysaa ani hadda weydiisan yahay update iyo wax saas iga rabaa marka waan soo kicinaya application ku weydiisan yahay application sida tan ay kugu soo baxaya marka wuxuu leeyahay saddex qaybood meel la yiraahdo join meeting iyo sign up iyo sign in marka join meeting waxay ka dhigan tahay salahan meeting ayaa socda ama class baa socda macalinku waxa uu ku siiyay ID-ga lagu soo gali lahaa WhatsApp kugu soo diray ama si kale uga soo qaadatay marka join meeting ayaad ku dhufanaysaa ka bacdi ID-ga waad gashanaysaa saasad xiisada ku soo galaysaa sign up-na waxay ka dhigan tahay adigu macalin baa tahay ka soo qaad ama meeting baa rabtaa inaad gashid oo adigu aad bilowdid ama xiisad baa rabtaa ardayna oo bilowdid marka sign up baad leedahay gmail-kaaga iyo magacaaga iyo wax saas soo gelinaysaa dan saasa xiisada ku bilaabasa sign in waxa weeye moolkaaba ka lumayba adoo hore zoom u lahaa marka passwordkii wixii wad garanaysaa ku soo samaysatay sign in baad leedahay marka waxaad gashanaysaa emailka aad ku soo samaysatay iyo passwordkiisii marka hadda waxaan ka bilaabanaa markuu zoom ku saa yahay waxaan rabnaa inaan soo sign up gareyno marka sign up ayaan ku dhufanayaa sign up markaan ku dhufto saddex option buu iga rabaa inaan buuxiyo emailkayga inaan geliyo first name iyo last name inaan geliyo marka intaas ayaan gelinayaa marka soo buuxiyo aan emailkii soo geliyay magacayga soo geliyay magacii last name aan soo geliyay halkan yar ayaa tigta saaraya halka markaan saa tigta u saaro waxaan taabanayaa meesha ku qoran tahay next markaan doortay halka sare wuxuu soo qorayaa emailkan aad gelisay meesha ayaa waxaan u dirnay verification marka emailka furaysa warqada kugu soo dhacday ay ku soo direen ay dooranaysaa marka hadda waa u jeedaa xagga sare waxa igu soo dhacay zoom meeting emailkiiba ku soo dhacay marka warqadaas aan dooranana emailkaaga marka saa u soo furtid waxa u jeedaa inay halkan inoogu soo direen verificationkii marka waan ku dhufanayaa markaan ku dhufto waxaan leeyahay activate account marka dhahdid bartan ay ku keenayaa marka waxa sameynaysaa wax yar ay xagan u sikinaysaa then halkan waxa u jeedaa inay ku qoran tahay yes iyo no marka no ayaan dooran ka bacdi waxa leeyahay continue markaan soo dhaho halkan waxa leeyahay password samayso waxa u jeedaa halkaas wuxuu soo geliyay magacii koowaad iyo magacii labaad marka halkan wuxuu leeyahay password samayso passwordka waa inuu ka kooban yahay 8 xaraf xarafka ugu horeeyana waa inaa waaweyn ka dhigtaa passwordka waa inuu isugu jiraa numbero iyo xarfo marka 8 ilaa 8 ha gaaro marka passwordkan gashanana passwordka marka soo gelino waxa leenahay continue marka dhahdid waxyaabahan invite weeyo waa iska skip garanaysaa skip ayaad leedahay skip marka dhahdid haddana skip aska si leedahay ka bacdi halkan wuxuu ku siiyay ID-gii ama link-gii aad ku gali lahayd zoom-kaagu lahaa ee aad arday u share garayn lahayd marka link-giga ama ID-ga lagu sheegay waa intan ayaad ardaydaada u diraysaa ama number ahaan baa ugu diraysaa ama link-gan ba inta koobiyeysid aad u diraysaa marka link-ga waa muhiim intaad koobiyeysatay inaad meel dhigatid marka hadda waan koobiyeysan saas ayaan korkiisa u tuujinayaa ka bacdi waxaan leeyahay copy link address marka
si aan u bilowno hadaba dib ayaan iskaga noqonanaa oo zoomkeena ayaan soo gelinaa meeshan waan iskaga baxaynaa maadaama aan linkigiina haysano aan soo samayno password wax kasta aan soo gashanay hadda waxaan soo kacisanaynaa hadaba applicationka marka hore sign up baan niri hadda sign in baan leenahay maadaama aan soo samaysanay waxa la yiraahdo password iyo gmailkina aan soo gashanay oo aan soo sign up garaynay marka sign in ayaan leenahay sign in markaan dhahno halkan waxaan leeyahay waxaad gelisaa email address iyo passwordkii haddii aan isku soo sameynay marka halkan emailkii waan gashan markaan emailkii passwordkii soo gashanay waxaan leenahay sign in then sida tan ayuu kugu soo baxayaa marka options kan ugu sareeya waa muhiim inaad fahantid halkan waxa weeye new meeting markaad gelaysid ay xiisad cusub bilaabaysid jointan waxa weeye markii de qof kale uu xiisad ku jiro salahan linkiga lagu soo diray oo kale ama ID-ga lagu soo diray aad ku galaysid waxyaabahan kale muhiim maaha share screen waa marka aad shaashada computerkaaga ama mobile-kaaga share gareynaysid cid kale aad rabtid inaad wax ka testid ayaad gelaysaa marka hadda meeshaan socono waa new meeting oo waa sidii aan meeting u geli lahayn oo bilaabi lahayn marka new meeting ayaan ku dhufananaa new meeting markaan ku dhufano waxyaabahan waxba ka bedeli maysid kaliya waxaad leedahay start start marka soo dhaxday sida tan ayuu kugu soo baxaya marka hadda waxyaabahan hoose inaad fahantid iyaguna waa muhiim meeshan waa meesha codka laga daarayo oo hadii aad rabtid zoomka salahan aad arday wax baray sidoo kale aragtina la heshid codkan ayaa furanaysa saas aad ula hadlaysaa meeshan ku xigta waa video call oo iyaduna waa start video oo si live ah oo caadi dadku ku arkaan oo sida video call-ka kala weeye meeshan share ay ku qoran tahay iyaduna waa waxyaabo badan baa ku jira hadaan ku dhufto share waxyaabo badan ayaa soo baxaya haddaad live kan website oo kale ama YouTube aad ku share gareynaysa meel kale aad ku share gareynaysa haddaad screen-kaaga share gareynaysa screen-ka mobile-kaaga aad share gareynaysa haddaan screen ku dhufto oo screen asaa ugu dhufto then aan halka yar tigta saaro kabacdi dhaho start markaan dhaho hadda permission-kan oo ogolaanaya oo laba baan leeyahay kabacdi aan iskaga soo noqonaya imika waxaa ujeedaa si toosa mobile-kayga screen-kiisii ayaa share gareysmay halkan waxaa ujeedaa waxyaabo badan inay kaaga soo baxeen marka zoom-ka ayaan hadda ku noqon meeshaasina waa share oo dadka ayaad mobile-kaaga ama screen-ka computer-kaaga ayaad la wadaagaysaa oo saasaa wax ugu tusaysaa meeshan ku xigta iyadana waxaa weeye meesha dadka zoom-ka ku jira aad ka arkaysid aniga kaliya hadda ku jiro oo cid kale kuma jirto marka anaa hadda hoostiga haysta dadka iga hooseeya ama dee ardaduna waxay kala leeyihiin qayb aan halkan joogin oo qofku markuu linki soo riixo toos halkan uma imaanayo wuxuu imaanayaa meel bilaa coda oo kaliya uusan cod furan karin waxna isku furi karin oo kaliya daawan karo bis marka qofku hadduu hoostiga haysto oo bartan ayuu keenaya marka meeshan keligay unbaa hadda ku jira dadka marka soo galaan halkan unbay soo wada galayaan oo halkan laga arkaa iyagana meeshan kale ku xigta waa more oo iyaguna waa meel kale oo waxyaabo kale ku sii jira waa sitki wax soo laga maamulo almuhiim application-kan qof markuu live ku soo galayo ama uu xiisad ku soo galayo si toos ah oo aan wax shucaa iyo waxsaas ku jirin ayuu kula wadaagayaa ardadii ama dadkii uu meeting la galayay intaas ayaan jeclahay maanta inaan la wadaago waa saaxiibka Cabdirasaaq Salmaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.